maantiina u jawaabo gabadha tiri wiilasha mudug jacayl ma yaqaanaan waxa kale oo wiilasha reer gaalkacyoodka ama reer mudugga waxaan ka aaminsanahay inay horta wiilal qalbi adag oo dhagaxa daacisha xuntaayo maleen saxaarka inuu ku dhagan yahay ku haysana subxaanallah magaceedu waa saytuun siman gabadhan quruxda badan aad u jeedaan taajirada daada yar boorsada wadato waxa laga bixiyay $2,000 gabadhan waxay ku nooshahay gobolka mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo shaqaalaha kursiga ka leexinaya kaliya ayaa wuxuu qaataa $2,500 gabadhan oo kiyaalahay wadato waxa laga bixiyay $1,000 mobilkeedana iska badaa saytuun siman oo karbaastay suuraleydii xanaan ahayd halkaas saytuun siman ay tiri dhigeen waana qanciyaan wayna la shaaxeeyaan waan ku faanaa jacaylkan wayna siiyaan saacan xanaan ayaa ka baraaranaysa oo ka baqbaqleynaysa horteelada gobolka mudug ugu qaqaalisan saytuun siman oo ugu faantay dhigeedu inay yihiin dad sharaf leh reer mudugga weerashoodan ay jacaylka yaqaanaan ayna qaarkood jacaylka sun u cabaan hadalkii xanaan la beeni xanaan waxa lagu yiri wiilasha reer mudugga jacaylka isku dilaan dabaq shanbiyaana way iskaga tuuraan assalaamu calaykum asxaabtay meel kasta oo joogto waa idin salaamay halka waxaan idinka salaamay saytuun siman boqoradii mudug oo ku nool magaalada Gaalkacyo waxa ramaantiina u jawaabo gabadha tiri wiilasha mudug jacayl ma yaqaanaan waxa kale oo wiilasha reer gaalkacyoodka ama reer mudugga waxaan ka aaminsanahay inay horta wiilal qalbi adag oo dhagaxa soo marka reer mudugga adeeg waay maaho dad badan qalbiga ka ooyo maaho waliba adduunka meel ka joogaan ama Gaalkacyo ha ahaato ama meel kale ha ahaato buux waay maaho xaswa khiyaal abay macaamideeda kala horta waa adiga iska dhigdhigay reer xamare oo saa isku qalqaloocinayee horta bal adiga soo toosi marka hore mideeda kale maxayba wiilalku shukaasadaaba tacmaan maxaa qof jacayl loo soo buritaadaaba tacbaano bas taaye bismillah hadalkaaga laga yaqsanayna wiilana saareer mudug uma hadlaan maxaa ku qalda saareer mudug wiilashan reer mudug jacayl way yaqaanaan qalbi dhagax malaan waa xaruur waa wiilal fiican waa wiilal ma sha Allah waa qalbi xabxab ma sha Allah baa macaan أنا أدي وأركي دوا شكانا وأنا شكاسة وأنا لا دشة واحد شكاسة يعني وأركي مفهمتي لكن أذوق هرت في سماء ما بكرتيد بدي قف شعير لصوب بدي جن كلام ما بتهيد بواي مركا أنا فيديو وأركي بابا أركي فول حما يحس كدرستها هذا الحب مركا والله ما بقف ما بتهيد منها شعير لو قاعد كرو قف شعير لو قاعد كرو قلبي لو فر كلام ما بتهيد مركا هذا الكاغاركي مدة كله الموسى ما والله برموز قصة هذا واتنكو هرتاين والله في شيء عليه لا في رمضان وتعمل كستاي شوغان بعد وينا هوس عادي نعكت هوستيدا عادي مصاب بدنيا ويلاش رمضان جعل ويقانا أنا شكاسة أنا شكاسة ما فهمتي أنا وين إلى دشين waxaan leeyahay wiilasha reer mudugga muuqaalkan aduu ku socda waa saytuun siman oo leeyahay muuqaalkan like saara share saara adreska miya taabta meel kasta gaarsiiya daacisha xunta cabaka burburana ku daashaa dhiraadeen wan like saara daacisha xuntaayo maleen saxaarka inuu ku dhagan yahay ku haysana waxa ku yiri iska celiyo fiidiyoga hal gaarsiiyo naga jabiya nacab fool xumadeeda la yaabanayo horta af Soomaaliga iska soo saaf Soomaaliga no xagee si u hadlo sabab ma fahmin والله hadalkeeda ma fahmin reer mudug saamaba wallah reer mudug qoftaan oo kala ka dhalatay ma fahantay laakiin naga jabiya cadawga fiidiyoga like saara oo adreska taabta oo share dhaca meel kasta gaar wiilasha mudug meel kasta ku noolyihiin baa gaaro wiilasheena quruxda badan oo reer mudugga jacayl way yaqaanaan lamana gaari karo meel kasta ay joogaanba I love you wiil mudug aniga haddaan wiil guursanayo waxaan guursanayaa wiil reer mudugga oo reer Gaalkacyooda oo sanka ka hadlaya jacaylna way yaqaanaan nacabku tarbiyada ha jiiro